أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa halkan inaan wadara fariin kooban dhammaan walaalaha isticmaala qaybo ka mid ah oo badan baraha bulshada. Baraha bulshadu waa meel khayrna laga fidin karo, dhib iyo dembi iyo shar badanna laga samayn karo. Fariinteeda caawa waxay ku saabsan tahay ama aan halkan ka soo jeedinayaa waxay ku saabsan tahay fariimo badan oo isdaba joog ah qoraallo iyo cod u soo dhaca oo la xiriira arrimo diin ah iyo axaadiis iyo ballanqaadyo. waxaa jira fariimo beena oo dadka aada loogu fidiyo. waxaan rabaa inaan ka hadlo laba nooc oo mid ay laba tahay. nooca koowaad aan raba inaan ka hadlo waa fariimo badan oo qoraal idinku soo gaaraya oo laleeyahay waxa haddaad akhrida waxaasaad heli, aad kursi haddaad akhrida waxaasaad heli, qurwallo inta haddaad akhrida waxaasaad heli, dikri haddaad akhrida waxaasaad heli, mudiinta alle ee gudaheed baad waxaad ku arki, haddaad samayn weyey fariintan fidi, haddaad fidin weyda dhibkaasaa kugu dhici, oo ballanqaadiyo oo sidaas oo badan oo been ah. arrimahaasi shaki badan waxaa laga qabaa inay ka dambeeyaan dad aan muslin ahayn. nuxurka iyo ujeeddaduna diinta dadka in laga shaki geliyo ay tahay. laba arrimoodba marka waa muhim inaad ku baraarugto. marka koowaad waxaan la sheegaya waad heliyo oo kugu dhici laleeyahay waxba kama jiro. aayadna ma sheegin, xadiid nabi oo suganna ma sheegin. waa been ay dadku sheegeen, waa been la alifay oon sal iyo raad toona lahayn. saa darata ballanqaadyadani diinta ka mid maaha. sax aad ku siin laqaya fadliga leeyahay tusaale ahaan, laakiin hadda akhri weyda waxaasaa kugu dhici iyo haddaad akhrinta akhrida muddo intaa leeg baad wax ku helido been wey. qodobka labaad ee ku baraarugto ay tahay waa xumaanta ka dambaysa. haddii maanta ballanqaadka aad rumaysood arki weydo, mid labaad arki weydo, mid saddexaad arki weydo, mid shanaad arki weydo, mid tobnaad arki weydo, marka dambe waxaa iman diinta waxaanu ballan qaadaysay wada beentaa maxay tahay. diinta inaad ka shakida wey waxaa labaad imanaya. waana yoolka laga shakisan yahay hay-ado iyo shakhsiyaad iyo dad badanoo waxaa ka shaqaynaya inay hiigsanayaan. haddaba si khaldan yaan lagu raran. fariinta labaad aan raba inaan baraarujiyo waxaa weeye maalmahan qof codkiisu aada isugu egyahay, isshabaho oo wuxuu soo diraa fariimo xambaarsan axaadiis nabi sal slam laakiin beena. aan laba fariimood ka soo qaato. waxaa laga yaabaa inaad ila aragteen aada iyadoo la isugu dirayo fariin odhanaysa nabi maxamed baa sal slam 4 jirkay jiradaan, 4 jirkay dumiyaan, 4 risiqay reebaan, 4 risiqay furaan, 4 wejigay nuuriyaan, 4 wejigay nuurkiis ka qaadaan. taas waa been. nabi maxamed ma dhihin sal slam. waa dardaaranno dhakhaatiir bixiyeen. ibnulqayimna zaad almacaadka akhirkiisa ku sheegay. qaarkoodna niman dhakhaatiir oo griigii hore jalin yoosiya rag lamid a bixiyo muslim bahay. taas nabigaa yidhi waa been, waxba kama jiro. isla fariintaa waxaa ku duuban in nabigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi saytuunku saliidda zaytuunku 7 cudur bay dawa ka tahay. waa been. nabigu ma dhihin sal ly slam. waxaa ka mid ah aadaanka ha la aamuso waxay aan la akhriin. nabi maxamed wuxuu yidhi haddaad aadaankoo socda wax akhrido shahaadada sakaraadka markuu qabto tawxiidka haleeli maysid. iyana waa been, waxba kama jiro. nabi maxamed baa hadli jiray, saxaabadaa hadli jiray oo sheekaysan jiray aadaankoo socda, sida muwatta maalik laga wariyey. cumar markuu khudbaynayo fuulo mimbarka salaada la joojin jiray, inta la aadaamayana waa la sheekaysan jiray. saasay saxaabadu ahaan jiray. marka iyana waa been, nabigu ma dhihin. waxaa ka mid ahoo fariinta uu xambaarsan yahay rumaanka iniintiisa iyo midhihiisa mid kastaba biyaha ku jira jannay ka yimaadeen ama biyo jannaha ku jira. waa been. nabi maxamed ma dhihin sal ly slam. fariintaa dhan laba eray baa runka ah. nabigu wuxuu yidhi balliquu canii walow aaya, iyo nabigu wuxuu yidhi xabatu sawdaa shifaaun min kulli daa. inta kale waa been. nabigu ma dhihin sal ly slam. fariinta labaadeen tusaalahan kusoo qaadanaya kale waxaa weeye codkaa shabaha ninkaana u eg ee wuxuu warinayaa fariin ku bilaabanaysa wallaahi wa billaahi wa tallaahi. haddaad dhegaysato wuu ku saamaynayaa, qalbigaa waxuu ka bedelayaa. duruusun fi lxub. intaa dhaarta ah muxuu ku dhaartay? been buu soo wadaa. wuxuu leeyahay nabiga iyo cumar iyo abubakar iyo abudar baa meel isugu yimid. nabigu abubakar buu weydiiyeyoo maxaad jeceshahay buui. adduunyada 3 aan u jeclahay buui. cumar buu weydiiyeyoo 3 aan u jeclahay buui. abudar buu weydiiyeyoo 3 aan u jeclahayoo jiro iyo cudur iyaa ka mida.
kadib nabigaa la weydiiyo adduunyada saddex baan u jeclahayo atiibu waannisaau wasalaatu buu yiri buu leeyahay intan dambe oo weli wax khaldani ku jiraa ka jirta tan nabiga calayhi salaam way jirtaa xubiba ilaya min dunyaakum atiibu waannisaa wajucilat qurata cayni fi salaa adduunyadiina riwaayaadka qaarkood odhanaya halaaatun waa been riwaayada halaaatun ma jirto waayo salaadu adduunka ka mid maahaba atiibu waannisaau nabigu waa yidhi sheekadan kale ee ku lamaani waa been meel kutubu sunna ay kaga qoran tahayna ma jiro inay sidaas tahayna culammadu waa sheegeen nin la yidhahda qastalaani buu mawaahib laduniya ku sheegay ajrulina fii kashfi alkhafaa markuu sheegay meel lagu garanayo inayna jirin bay sheegeen marka sheekadaa beenta buu dhaar uusan ilaahay ugu baari samaynin buu ka horraysiinaya codka ninkani ninka waa isu egyihiin dee ciddii garanaysa farrinteeda ha gaadhiso muslimka beentana dhexwada ka daa ha la yidhahdo nabigan laga been sheegaayo been lamid ma aha khayr baan jeclahayna qiil uma aha in nabiga laga been sheego dadka fariimaha beenta sheegayana intaad waxaan khayr baan jecel lahay tiraahdaan ha dambaabina oo beenta axaadiista haddaad 100 qof u qorto u dirto wada fuwaar garaysaan oo sii wada dhalan mid walba wuxuu ku leeyahay akharka agtaada yanan fadhiin qofka weliba waxay u sii badinayaa codkiisa oo ii sii adkaysinaya xataa carabi ma kasi ma garan yaqaan carabi soo loo wada qofkan ma yaqaan tan dambe saddexda u dhaaranayana abu dhar buu magaciisa kale laayay tan horana sadaqa jaariyu garan laayay sadaqatu jaar weyle jaar waa daris jaariya ma sadaqa soconaysa ma حتى جاري جار بكرة كأن لا يه أبو ذر بوعسك كأن لا يه حينتم بينتم أحاديث مارو كسر قرا الاستعداد ليوم المعاد من حجر لو تيرني بينتها ثلاثيات كي رباعيات كي خماسيات كي سداسيات كي عشاريات كبينتها يكبوا حين طالما مرينا يا مديوق من قاننا إنه قرب كسر طلطلة حن ربع فرين تيلو خير كفيلية لكن اسكه بصدق دمارة بينتها الوضع عن صدق حن قاننا مكرفونا بينته وأديجها النقننا وقال النبي والله قبل أن شيء وأدم بوين ما بحول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد بين لا يغشى الله من ما بين قفك لا يغشى فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إلهي الله يابو فرينت إذا قفك صوده وعدي قراني سيادتك هلا جارسيه بينتها هلا اسكيل عليه خير له وانا هلا فيديو ومع سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.